السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت شرف يا موسك بدن كسر دويت برنامج كين ريفيت. waxaan maanta sameyn doonaa Revit architecture-ka qaybtiisa staircase-ka jaranjaradii guriga oo dhameystiran architecture ahaan. Revit-ka si ahaantiisaba markii stairka la joogo wuxuu ku ogolaanayaa awood baxsan ku siinaya inaad abuurto jaranjarada architecture ahaan iyo structure ahaan labadaba. halka aad architecture ahaan ku ogolaanayo inaad sawirto shape sax ah oo dhameystiran. sidoo kale structure ahaan wuxuu ku ogolaanayaa inaad sameyso jaranjaro more detail ah, ha ahaato thickness of stair ama ha ahaato stairka iyo waliba type of steel oo ah nooca birta aad doorato inaad geliso iyo wixii gebi ahaan bil xiriira structure-ka. Anagu hadda waxaan sameynaynaa marka architecture ahaan ayaan design garaynaynaa. design-kan yaroo noo saaran hore ayaan usoo sameynay. roof-kan ayaan ka cunaynaa. level-kana gee jaranjarada meeshaan ayaan markii hore u banaynay. dimension-ka noocan waa iska bedelaynaa. halkan ku dhufo individual ka dhig whole face 280 kana haysanaa. iridkan waa wareejinaynaa, xayr meeshaan bedelaynaa. create similar dheh intiri 30 iridkeena halkan ayaan u wareegsanay. kana maadaama uu yahay qol halkan ku fiican yahay. markii aan joogno stairka saas markuu yahay qaybtaas yar ee taagan maxaa loo yaqaanaa razor. qaybtan waxaa loo yaqaanaa thread cagsaarta. meeshaas lagu kala wareegayo ama u shape ha ahaato ama saano kale l shape ha ahaato, qaybtaas lagu kala wareegayo waxaa loo yaqaanaa landing. qaybta halkan baalkii maxay ahayd birta halkan fuuli doonta ama loox durba ha ahaado ee loogu talagalay in aan laga dhicin dadku weli maxaa loo yaqaanaa handrail ama railing. waa gacan qabsiga. waxyaabaha ugu muhiimsan waa intaas. halkan markaan joogno waxaan ugu talagalnay inaan landing ka dhigno mitir iyo 20. the first time waxaad sameynaysaa detail line ama model line-kan noo qaat. cabirka noo soo qaat hamarintaan mitir 29. maxaan ka rabaa line-kaas inuu noqdo mitir iyo 20. line-kan sababta u sameynaa maxay tahay inaanan halkan u dhaafino intaan uu noqdo landing. halkan 2 mitir iyo 80 20 waa u shape-ka aad sameyn doonto jaranjarada inta u dhaxaysa 30 noqon doonaan. halka 2 mitir iyo 60 labada qaybood ay noqon doonaan, taasoo u dhiganta tiiba inay noqon doonto mitir iyo 30. architecture-ka jooga waxaad doorataa stair markaad doorato halkan ayuu ku soo geliyay stairkii.
kan waxaa loo yaqaanaa street stair spiral, kanna waa center end spiral, kan waa L shape, tanna waa U shape. waxaan isticmaali doonaa marka midaan streetka. The first halkaan ay imaanaysa hal mar aan soo hubin horta guriga height-ka aan siinay ma cancel. waxaa ku dhufataa south-ka ilaa mugtahay stair-ka sidiisa wuxuu ku xiran yahay height of the house. guriga dhererkiisa 4.45 mitir ayuu sheegayaa meeshan. halkaan 3.60 mitir nooga dhig 3.6. okay, waxaan noo celisaa level 1. marka stair-ka soo qaadato marka ugu horeeyo ku dhufsatay, then halkaana fiirinaysaa xaguu kaaga bilaabanaya level 1 up to level 2. desired numberkaaga muxuu noqonayaa? numberka u baahan tahay hadda fiiri razorkaaga 0.18 ka ah 17 number oo jarjaraha gelisu ku leeyahay. okay, meeshaan 22 xabo nooga dhig, halkan 0.3. marka intaas nooga dhigto the first marka halkaan imaanaysa xaga ku sawirmaysaa baashaada corner-kaagan ku sawirmaysaa. kilig markaa siiso xaga ku sawirantay darbiga dhex bartankiisii ayay ku sawirantay sooma. halkaana waxa kugu yaala location line-kan aad ka bedeli kartaa. haddaad right dhahdo darbiga geeskiisaana soo raacaya, haddaad left tira gudahii aadaysaa. marka maxaan leenahay right. halkaan hoose ingiriiskaas yar ee raacsiisan muxuu ku leeyahay 12 razor ayaa abuurtay, waxaana ku dhiman ku leeyahay 12 xabo 12 kale maadaama ay ahaayeen 22 xabo. kaasaa kale ku siinay intaasaa ku samaysan. waxaa ku hartay 12 kale. tan kale side-kan geeska arabta ka bilaabay halkaasaa ku dhufanay gudahay ku soo martay. kadib tan maadaama aysan meel gooni ku tageen waa iska jiidantay 10 xabo ku sameynaa, wax ka badan ma sameynayo. okay yaa leedahay. okay, markaad tiraahdo maraan fiirina 3D-ga waa taan noo abuurantay, laakiin maxay naga tahay waa assembled stair, waa looxay ka samaysan tahay. halkaan ayaa ku dhufanaysaa, waxaa ka dhigaysaa precast ama monolithic. marka precastiga noo qaat waxay noqotay waa concrete shubay isku bedeshay. level 1 nagu celi. halkaan iyo halkaan gaabaa jira, maxaa samayn karnaa? line tool soo qaadan kartaa, halkaa ku dhufo waata. okay, waxaa kaloo kaa dhiman jaranjaradaadan waa mitir ka dhigay. maxaan iri mitir 30 ayaan labada xabo ka dhigaynaa si gudaha mitir baalkii 20 senti ay u harto. saas isku darka muxuu noqonayaa 2 mitir iyo 80. halkaan waxaa leedahay marka mitir 30 mitirkan isaguna waxaa ka dhigtaa mitir 30. okay, confirm. okay, marka muxuu qaatay si automatic ayuu u qaatay railing. marka railing-ka maxaad u baahneen kan gudahaas marayo uma baahnid oo darbiga ayaa shaqeynaya. waxa u baahan tahay kaliya midkaan banaankaas maraya, kan kaligiis aa ku dhufanay waxaa leedahay delete. okay, haddaa rabto kan xataa iska cuni kartaa daladooda dheh. haddii lacag laysaan ku tahay se u saaraysaa. marka waxaan ugu celisaa level 1-ka. halkaa markaad joogto railing-ka adigaa saari kara. architecture markaa ku dhufato railing ayaa ku jira. railing-ka markaa laba qayb ayaa hoos tagta sketch path oo adigana gacantaada ku sawirto
iyo place on stair ramp place on stair ramp yaa ku dhuf kartaa kaligaa dhexe kaliya hal mar kor saare kaligaa dhexe 3D fiiri jaawal musi saas u saarantaa waxaa kaloo samayn kartaa kan geeska daconayso oo ku dhufanay iska tire because derbiga ayaa support ku ah macnaha in laga dhaco derbiga dhankiisa ma fududa macnaha okay halkaas markaan joogno gurigeena waxaan saareynaa slabkaan saareynaa structure adaysa slabkayga waa 15mm foundation slab kana ay fuulay hadaa rabto editay baa leedahay duplicate slab oo ah 15 centimeter edit aa leedahay kadib hadaa rabto halkan ayaa ka bedeleysaa materialka concrete-kaas ayaa noo saaray siis noogu dhaaf 15 centimeter naanoo yahay okay aa leedahay okay slabka offset waxa lama jiro slabka ku samaysmaya level 2 ku samaysmaya big lines kana soo qaad big line ka san qaatay kadib laymanka gudaha ugu dhufo kadib waxaa leedahay trim extend kani kan isku xiran yihiin kani kan isku xiran okay okay maxaa aragtaa oo xiran yahay positionkii aan ugu talagalnay stairka halka korkeeda inay furnaataa lagu talagalay maxaa samayn kartaa level 2 aad tegi kartaa structure architecture ku dhufanay shaft ayaa ku dhufanaysaa markaas boxkaana soo qaadanaysaa rectangle-ka xaguu furaya level 2 dagaa ku siinaysaa okay kadib waa u furmay okay amar waxaad tagtaa soo televisionka halkan waxaa nooga dhigtaa wireframe haddaad rabto 22kaas kor haddaad rabto inaad xiro qaado 22 waa ku tirantay haddaad 22 ka dhigtana 15 senti hoos u degaysaa maxay ku tirmaysaa slabka sagxadiisa hoose qaybta korna waxa ku noqonaya slabka okay waxaan ku daraynaa haddaan rabno floor kale ayaa hal mar highlight saari kartaa filter aa leedahay maxaa naga bixisaa case waaga naga bixi ma rabno dhowriska u baahana floorka ma u baahnin furniture waa cunaya isagana leveliska waxaa cunaysaa lineskan plan railinka waa u baahannahay railinkan kale shaftiga waa u baahannahay waxaa kaloo cunaysaa specify argumentiga naga cun okay aa leedahay waxaa leedahay copy then waxaa ku dhufanaysaa align it to selected levelka u baahan tahay level 2ga inaad saarto aan u baahana laba piano ayuu gurigaaga sidaas ku noqday okay insha Allah waxaan samayn doonaa qaybo kale oo badan oo istiir kamid ah hadduu Ilaahay yiraahdo saaxiib haddaan ugu cusubtahay waana subscribe saarta saaxiibada la wadaag ka faa'iideystaan sidoo kale waxaan ku rajeynayaa maalin wacan oo qurux badan wanaagsan insha Allah